السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك سوجوكتان كسولو جنرال كيغو بشر محمد بردري برامجka saaka iyo suuqa kaliibsiga ciyaartooydan ku soo qaato wararka ugu xisaabadana dhanka suuqa iyo warbixinaha sala ku qato dhanka suuqa wararka dhanka suuqana waxa kamid ah Chelsea ayaa 100 milyan oo yaboha ka helaysa Real Madrid waxaana uu ku wajahan yahay dalabkaasi xidiga ka tirsan Blues ee Eden Hazard kaas oo qadka dhexe kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea waana 28 jir si aad kooxdan ay u baadagoobayso warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Faransa xidig ka tirsan isla markaana Manchester qadka dhexe u qaabay Paul Pogba 26 jir xidig wiilasha wadanka Spain ee goosh u qabtay kooxda Manchester United oo 28 jir ayaa labaduba kamid ah 7 ciyaaryahan kuwaas oo ku fikiraya inay isaga tagaan kooxda Manchester United iyagoo doonaya in kooxda ay faarujiyaan warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah kooxda Blue Chelsea ayaa markan waxa ay doonaysaa Bayern Munich iyo Poland waryahankooda Roberto Lewandowski oo 30 jir waxaana ay doonayaan inay soo horgeliyaan Chelsea ayaana doonaysa inay iska xoojiso qaybta hore oo ay kooxdu ka liidato warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah waryahanka Paris Saint-Germain Neymar Jr 23 jir ayaa iska diiday intii uu ku sugnaa kooxda Barcelona marar badan in uu isaga dhaqaaqo in badan balse ugu dambeyntii ayuu kooxda isaga tagay sida uu leeyahay xidigii hore ee Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Adriano Neymar ayaana muddo ka dhagaadeegay inuu kooxda isaga tago balse markii dambe ayuu go'aansaday xidigani in uu isaga tago kadib celcelin badan iyo bahyo badan oo uu xidigani ka helay Paris Saint-Germain warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Manchester United ay u dhaqaaqayso Paris Saint-Germain iyo Belgium xidiga daafaca midig kaga ciyaara ee Thomas Muller oo 30 jir waxaana ay doonayeen tan iyo bilaabashada xilli ciyaareedkan kooxda ayaana xidigan isku dayi doonto inay soo horgeliyaan warar kale dhanka suuqa waxa kamid ah Bayern Munich iyo Netherlands garabkooda duule Arjen Robben oo 35 jir oo kamid ah ciyaaryahanada kubadda cagta ayaa markan u dhaqaaqay karaasirada dalka Talyaaniga Inter Milan ayaa ugu cadcad xidigan inay heli karaan sidoo kale waxa macquul ah inuu aado horyaalka MLS-ka dalka Mareykanka oo loo gacanaatinay waana mid kamid ah xidigaha garbaha ka duula kuwoodii ugu fiicnaa ee kubadda cagta Bayern Munich ayaan waqti qurux badan xidigani ku soo qaateen kasoo waayihiisa markan gabagaba ay ku sii dhaweeyeen gabiyaan barnaamijka